macadka qabaab binu aradi ayaa magaalada muqdisho maanta ku qabtay munaasabada qalinjabinta dufcada 10-aad ee dhameysatay qur-aanka kariimka iyo dufcada 3aad ee ka baxday shareecada islaamka. macadka qabaab binu aradi ayaana ah macad qaybo kala duwan ku leh gobolada dalka iyo magaalada muqdisho, iyadoona munaasabadani ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiin, aqoon-yahano, macallimiin, culamaa u diin iyo waalidiinta ardadooda ay qalinjibisay. ugu horeyntii waxaa munaasabada furay Saciid Cabdiraxiim Maxamed isagoo faahfaahin ka bixiyay munaasabadan. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan martiqaad ama marti aan ku nahay ama aan raali ka nahay hambalyadiina, horumarkiina, farxadiina, madrasada iyo macadka Khabaab bin al-Arad. macadka Khabaab bin al-Arad waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 2018 anagoo kaashanayna raabitat al-macaahid al-sharciyya iyo wasaaradda waxbarashada. ahdaafta iyo asbaabta loo aasaasay macadka waxaa ka mid ah in la barto al-Qur'aan al-Kariim wa culuum al-shariica, quraanka kariimka iyo shariicada islaamka. labo, inaan faafino culuumta shariicada islaamka iyo daraasaadka islaamka ayadoo ku salaysan almanhaj alwasatiyya. qodobka saddexaad, asbaabta ama ahdaafta loo aasaasay macadka waxaa ka mid ah in la diyaariyo ducaad mucallimiin ah, arday u diyaarsan inay horumariyaan mujtamacooda, maadaama mujtamacii aad problem ama mashkilo uu noqday social mediaha ama baraha bulshada. waxaan ugu targalnay marka macadka asbaabtan u aasaasna waxay ka mid tahay in la diyaariyo arday, macallimiin, mujtamac u adeega diinta islaamka. sidoo kale waxyaabaha loo aasaasay waxaa ka mid ah gharas alqiyim alislaamiyya wal akhlaaq alhamida, akhlaaqda wanaagsan, shareecada in ardayga ama ardayada ay ku sifoobaan. sidoo kale macadka waxaa ka qalin jibinaya dufcadii 3aad ee daraasaadka islaamka. sanadkan wuxuu diyaar u yahay inuu qaato arday cusub insha Allah biidhnillaahi kariim. waxaan idin leenahay hambalyo ardayda xifdisay quraanka kariimka iyo ardayda dhameysay dufcada 3aad ee daraasaadka islaamka. shukran, jazaakumullahu khayran. sidoo kale waxaa goobta cilmiga ay barteen ku soo bandhigay ardayda maanta qalinjibintooda ay ahayd إنه يوم من أيام الفرح التي تختلط فيها المشاعر، الاعتذار بالفقر، حيث نقذف اليوم ثمرة السنين من الجد والاجتهاد، ونشهد ميلاد الجيل الجديد يحمل رسالة العلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن أبي أمامة حديث وحالي رضي الله عنه إلى أكرار الأخذين قال وحول يا أبي أمامة سمعت وحام مقلي رسول الله رسولك إلهي يقول أسيقنا اقرأوا القرآن كأخريا فإنه القرآن يأتي وإيمانيا يوم القيامة مالك القيامة شفيعا رسول شفيعا قاضيا لأصحابي أصحابي. بسم الله إلهي مجيسا يانكو بلاويا الله سو الرحمن نحريست قد نحريست الله سو الرحيم نحريست قار نحريست ألهاكم محايد مشغولية التكاثر وحبت سقا حتى انتي زرتم أتكبغتان المقابر قبورها كلا كجوا سوف دبدن بايا تعلمون أوان دونتان ثم كدب كلا كجوا سوف دبدن بايا تعلمون أوان دونتان كلا كجوك لو تعلمون هداك وهل هذين علم اليقين يقين علم هذا لترون وتأرك لهذين الجحيم نار جحيم. والثاني دغام بغير قلنا في اللام والرسم مكاررنا. والثالث الإقلاب عند الفاء ممن بقنة مع الإخفاء. حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر، بكم طاب المكان وغنت الألحان في ثقل. قباب ورقدي ميت افتي مسدت كان
toosinaya jiilasha waxay barayaan qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay aqoon-yahanadii culamaa udiinkii mas-uuliyiintii iyo waalidiintii qaybta ka ahaa munaasabadda iyo sidoo kale macalimiintii iyo bahdii waxbarashada ee macadka Qabaab bin Arati. nabigu wuxuu yiri waxaa idinku khayr badan ruuxii qur-aanka barta oo haddana sii bara kaasaa idinku khayr badan. waa shahaado nebi haystaan dadka qur-aanka bartay oo dadka sii baraya rag iyo haweenba waxay ahaadaanba yaryar iyo waaweynba dadka qur-aanka bartay oo haddana sii baraya waxay haystaan shahaadadii nebiga haystaan oo shahaado walba ka fiican. khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu. saas ku bishaaraysta macalinkeena khayr allah siiyo sheekh ibraahim iyo macalimiinta kaloo la shaqeeya oo dugsiyaalka wax ka dhiga khayr allah siiyo shahaadadaas ku bishaaraysta tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaan farxadda iyo la wadaagayaa runtii ardada iyo macalinkeena qaaliga ah ustaad ibraahim daalib iyo ardadeena qalin jabisay qur-aanka kariimka ah iyo macadka ayaan farxadda la wadaagayaa ka waarid ahaan anoo ku hadlaya waaridka afkiisa hadday maaragtay ay sidaas tahay waxaan leeyahay hambalyo madarasada Qabaab bin Arati ha guulaysato. waxaan rajaynayaa arday badan oo ka baxday inay maanta ay ku shaqaysanayaan cilmiga ay ka barteen ummadana ku anfacayaan dalkana ku anfacayaan ayaguna isku anfaceen. ilaahay waxaan u rajaynayaa kuwa soo socdana inay saas oo kale ahaadaan. waxaan maaragtay hambalyo leenahay ardayda macadka Qabaab iyo macalimiinta ku soo dadaalay juhdiga faraha badan leh geliyay kana shaqeeyay xafladan quruxda badan leh inaan isugu nimaano. waxaan leenahay waa maasantihiin ajarkiina lama soo koobi kara ilaahay agtiisa waxaan kaga baryaynaa xasanaad iyo jannadiisa inuu idinku casuumo. macadka Qabaab bin Arati xafladiisa waan ka soo qayb galay markii koowaad ma aha. waa macad aad ku ildoogsanaysid kaalin weyn bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Muqdisho ugu jira sanad walbana ku soo biiriya jiilal yaryar oo qur-aanka Rabbi subxaanahu wa tacaala iyo culumta shareecada baratay. marka waxaan leeyahay maamulka macadka macalimiinta aad iyo aad u mahadsantihiin shaqada aa wadaan aad ayaan raali uga nahay. waxaan aad ugu faraxsannahay haddaan nahay raabidat almacaahid alsharciya fi Soomaal ama xiriirka macaahidda shareecada ee Soomaaliya inaan idinkala soo qayb galno xafladan qiimaha iyo quruxda badan ee aad ugu dawaaldegaysaan aad ku guranaysaan mirihii aad intaasoo sano aad wax u baranayseen. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaadba waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. maxadka Qabaab wuxuu ka mid yahay macaahidada horumariyay xaafadda hadda aan degannahay gaar ahaan qaybta Madiina ayuu ka mid yahay isbedel aad u qurux badan ee maanta lagu faani karo ayuu ku soo kordhiyay xaafadda Bulxubey Ceelqalow. aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxda gaar ahaan macallin Ibraahim jazaahullahu khayran iyo raggiisa ee garbaha taagan dadaalka aad sidaan. markuu ugu horeysa ardayda xufaada iyo guud ahaan gabdhaha mutakharijaadka iyo ardayda mutakharijiinta guud ahaan iyo qur-aanka xifdiyey inaad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idinla doonay nicmo weyn. haadaa qof walba ma hel xaqiiqatan. waxaa laga yaabaa dad asaagiin ah idinku da ah maanta inaysan qur-aanka baranin ayin kaanat ilasbaab waalidiintooda ka bixi waayaan ama waalidiintooda aysan toosnaanin يعني نعمة وين واي يخلق ما يشاء ويختار إلهي سبحانه وتعالى intaas caruur magaalada ku diisan ilaahay ka soo dhax dooray quraanka baratay oo xifdisay marka nicmadaas nicmo weyn waaye waxa la rabaa nicmada in la dareemo laguna adkaysto juhdiga iyo dadaalka idin galay adinka maadaama wali aad ilma aatihiin waxa laga yaabaa in aynan aad u fahmi karin awoodda iyo juhdiga la idin galiyay inta uu leeyahay hooyooyinka mahadsan waxa mahadsan aabayaasha waxa mahadsan qof walba oo maalin حتى كلمة أما تلمان كجستي إنه هوشان يقول يزتو ما نكنا أنا نجا جوب جوجو هارو دمان أرديد متخرجين
iyo mutakharijaadka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. sidoo kale waxaan bogaadinayaa maamulka machadka Khabaab dadaalka ay wadaan. dadaalkooda waxay gaarsiiyeen magaalada Marko inay ka furaan farac labaad oo ugu horeeyo ustaad Ibrahim Talib iyo majmuucada la shaqeyso dhammaantooda waa ku mahadsan yihiin juhdiga iyo dadaalka ay gelinayaan machadka. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray aasaasaha iyo maamulaha guud ee madrasada Khabaab bin Arati Macalin Ibrahim Dalib Xaaji Xasan. ilaah mahadle subxaanahu wa tacaala allihii noo fududeeyey in aan qabsanno xalfadaheenii oo sanadlaha aan qabsanaynay oo sanad walba ay qalinjibinaayeen arday dhammaynayso qur'aanka kariimka iyo arday xifdisay iyo arday ka qalinjibinaayo machadka shareecada ee Khabaab. waxaa kaloo mahad leh waalidiinta sharafta badan ee gacan weyn na siiyey in ilmahoodii wax inaan barno. keligeeni haddaan nahay wax aan bari karno ilmaha ma jiro haddii uusan waalidka nala shaqaynin, laakiin waalidiinta way nala shaqeeyaan, waan iska warhaynaa, wayna mahadsan yihiin. waxaan kaloo maxaa la yidhaahdaa meeshaan aan ugu mahad celinayaa walaalkayga ustaad Axmed Jeelaani faraca magaalada Marko ee maamulka meesha noogu ah. asagana waxaan rajaynaynaa hal sano ka bacdi ardada meesha qarijiinta ah inaan sidaan oo kale maxaa la yidhaahdaa aan ugu dhigi doono xalfad qiimo badan aan rajaynaynaa. hal sano soo socota maahanee sanadka ku xiga inay qalinjibiyaan aan rajaynaynaa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ardada qalinjibiyaasha dhammaantood. waxaan leeyahay mar walba aan kor u kacno, madrasada kor ay u kacdo, waxa ka dambeeyo waa ardada dhigata iyo waalidiinta ardadaas ka dambayso. cid kale oo waxa waaye nagu taageerto ma jirto. waalidkaasi aad u mahadsan yahay, waalidiinteennii aad u mahadsan yihiin. laakiin waxaan rajaynaynaa khayrka in la daa'imo. khayrka haddii aan la daa'imin, aan la joogtaynin, faa'iida ma leh. khayrka wuxuu faa'iida lahaanayaa markii lagu dhex jiro oo la daa'imo, lagu dhinto, markaasoo qiimo yeelanaya. Shukri Cabdi TV-ga Shabeelle.